salaamullaahi calaykum khiyaarta nala socota meel kasta oo aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo tabin gaara oo ku saabsan wararka gobolka bariga dhexe iyo faaqidaada caalamka qodobadaan idinkugu haya tabintan maanta oo bisha Juun ay 9 tahay sanadka 2026 waxa kamid ah madaxweynaha militariga waxa uu tilmaamay muddo dheer uu dalkiisa ku tiirsanaa wadamada reer galbeedka sida NATO iyo waliba Mareykanka in hadda Turkiga uu noqonayo mid kamid ah ilaha badbaadada ee wadamada uu saaxiibka la yahay hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli xiisada gobolku ay cirka isku shareerayso isla markaana wax laga bartay dagaalkii bishii Juun ee sanadkii 2025 lagu qaaday dalka Iran mar kalena dib u qarxay haddaba muxuu yahay gantaal si gaar ah ayaan u dul istaagi doonaa hadalka Erdogan gantaalahaas oo soo bandhigay wadankiisa iyo waliba khibrada iyo kobaca warshadihiisu ay sameynayeen 10 sano ee la soo dhaafay taliyaha ugu sareeya ciidamada nidaamka Israa'iil iyo amiga ah ee Iran waxa uu ku tilmaamay haddii xaalku uu sidan sii ahaado waxaynu sameyn doonaa tallaabo kasta oo aan doonayno in aan ku burburino nidaamkaasi haddaba maxaa keenay xilligan in uu hanjabaad jeediyo iyadoo shalay lagu dhawaaqay xabad joojinta labada dhinac kadib 24 saac oo ay dhinacyadu dagaalamayeen ururka Xisbullah ayaa amar ku siiyay dowladda Beirut waa Lebanon in ay wanaajiyaan xiriirka diblomaasiyadeed ee sidii diblomaasiyad ahaan ay u wanaajin lahayd xiriirka la leeyahay Tehran ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay ururka haddaba muxuu Xisbullah uga cadaadinayaa dowladda Lebanon in ay gacan saar la yeelato dowladda Iran madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa laba wajiileyn cusub banaanka soo dhigay iyadoo dhaxdhaxaadayaasha uu kamid yahay dalka Pakistan ay hadda muujinayaan walaac hor leh oo ku saabsan heshiiska inuu burburi karayo warbixin gaar oo arrintaasi ku qoray wargeyska The New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaan ku lafagurayaa faaqidadan khiyaarta ay nala socota ay wararkaasi iyo dhacdooyin ku saabsan dagaalka gobolka bariga dhexe uu kamid yahay dowladda jamhuuriyadda islaamiga Iran oo guulo gaartay iyo waliba ciidamada Israa'iil oo jab uu ka soo gaaray dagaalka ka soconaya koonfurta Lebanon ayaan kugula wadaagayaa barnaamijka ee soo dhawaada kuna soo biira YouTube-ka oo hilmaamina inaad subscribe saartaan oo mahadsantiin jirto cid xilligan nahandadi karaysa ama u hanjabi karaysa wadanka Turkiga waxaan garanay isku filnaan dhinaca awoodda ah ciidamadeennana waxa ay qaadi karaan tallaabo kasta oo ay ku beegsan karaan cid kasta oo wadankeena isku dayda in ay ku soo xadgudubto ayuu yiri madaxweynaha wadanka Turkiga oo ay sameeyeen 10 sano ee la soo dhaafay iyagoo soo bandhigay gantaalihii ugu casrisanaa kuwaasi oo gaaraya meelo ka baxsan goobaha Israa'iil iyo waliba dowladaha kale ee gobolka ku yaala gantaalaheeda ay gaari karayaan shirkadda militariga wax soo saarka u qaabilsan ee Rocketsan ayaa noqotay mid hadda soo jeedatay uga hoos baxdo cadaadiska iyo waliba caqabadaha ay kala kulmaysay saaxiibada gacan saarka ay la lahayd sida wadamada Yurub iyo dowladda Mareykanka oo qayb ka ah gaashaanbuurta NATO tani waxay dhalisay markii Turkiga dhowr jeer laga hor istaagay in uu soo iibsado hub si uu danihiisa qaranka ugu difaaco iyo waliba in meelaha 1964 kadib markii madaxweynaha xilligaasi ee Mareykanku dowladda Turkiga ka hor istaagay tallaabooyin ay doonaysay in ay ku gasho Qubrus oo xilligaasi ay isku hayeen dowladda Greega oo ilaa iyo hadda labada dhinac ay u dhaxayso xurguf siyaasadeed iyo mid military oo aad u xoogan madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu tilmaamay markii la aasaasay inta badan shirkadaha wadankiisa bartamihii 80aadka ee qarnigii tagay la gaaray horumar iyo guulo ballaaran iyadoo aragtida wadaniga ah iyo hal abuurka shacabku ayaa aqoonyahanka iyo injineerada wadanka Turkiga ay bilaabeen in ay la yimaadaan falsafad military oo wadanka Turkiga lagu xakameynayo awoodiisa isla markaana lagu biritaarayo sidii militarigu ay u noqon lahaayeen kuwa ku gaashaaman qalabka gudaha wadanka ay uga howlgalaan inay noqdaan iyo caalamkaba mid iyagu farsamaysteen oo inta badan aanay ka soo iibsan caalamka
inkasta oo Turkiga ka tirsan yahay gaashaanbuurta NATO oo ay si weyn isku hayaan dowladda Mareykanka maadaama Shiinuhu uu hadda yahay quwad koraysa halka Mareykankana uu yahay mid dunida hore u maamulayay aragtida ku dhisnayd maamulka halka dhinaca adduunka ayaa meesha ka baxaya iyadoo wixii ka dambeeyay markii Trump uu booqasho ku gaaray magaalada Beijing ee caasimadda wadanka Shiinaha madaxweynaha dalkaasi ee Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha Xi Jinping uu ku dhawaaqay in dunida hadda laba awood oo siman ay ka jiraan loona baahan yahay isbedelka dhacaysan hormariyo ayaa waxa ay aad u daraasaynaya warbaahinta gobolka iyagoo ku tilmaamay in tani ay tahay isbedelada ugu waaweyn ee macaahidda cilmi baarista amniga iyo waliba daraasaadka ciidamadu ay sameynayaan gantaalo iyo qalab noqday cabsi gelin asaata shirkadda Rocketsan ay noqotay mid kaliya ee hal abuurkaasi keenta sida ay wararku sheegayaan gantaalka lagu magacaabo Yildirim gantaalada lagu magacaabo Yildirim Bora iyo wali gantaalka Yildirim markii hore la sameeyay isagoo gaaraya ilaa 300 oo kiiloomitir halka mid kale yiraahdo Yildirim Hana ay dhawaan ay Turkigu soo bandhigeen waxaa sidoo kale la soo saaray gantaalka meelaha fog gaara ee Bora la yiraahdo iyadoo qubaradu ay ku tilmaameen isbedeladan inay noqonayaan kuwa aad u xoogan ee wadanka Turkiga u sameynaya in ay sameeyaan dhaqdhaqaaq awoodeed iyo waliba mid military oo saameyntiisa ay xoogan tahay Turkiga ayaa bilaabay awoodiisa caalamka inuu tuso tan iyo wixii ka dambeysay bishii aynu ka soo sanadkaynu ka soo gudubnay 2025 bishii June markii dagaal 12 bari socday lagu qaaday dowladda Iran sidoo kalena bishii Febraayo dhamaadkeedii 28 markay ahayd ciidamada Mareykanka iyo kuwa Israa'iil oo isweeshanaya ay duqeyn ku qaadeen wadanka Iran colaadaas oo ilaa iyo hadda aan xal laga gaarin si loo abuuro isku dheelitir military oo ballaaran ayaa Ankara ka shaqeynaysa arrimahaasi sidii ay isbedel ugu keeni lahayd wararka ka imaanaya gobolka bariga dhaxana waxa ay tilmaamayaan in ururka Hezbollah uu ku dadaalayo sidii dowladda dhexe ee Beirut uu hogaamiyo Joseph Aoun loogu cadaadin lahaa inay ka mid noqdaan wadamada saaxiibka iyo sukaha dhowla ah wadanka Jamhuuriyadda Islaamiga jahayaan oo Israa'iil ay uga hortagaan sidaas waxaa lagu sheegay bayaan maanta soo baxay xilli koonfurta wadanka Lebanon ay ka aloosan tahay dhammaacda rasaasta iyo qaraxyada baaruuda oo ay iswadaarsanayaan ciidamada nidaamka xisbiga iyo sidoo kale kuwa Israa'iiliyiinta ee halkaasi ku soo loo arkaa hadii talaabadan ay qaado waa sida xisbiga uu tilmaamayo inay noqonayaan talaabo istiraatiiji ah oo amniga gobolkaasi u wanaagsan sida ay qubaradu ku tilmaamayaan taliyaha ciidamada Israa'iil Yaal Samir lagu magacaabo ayaa goor laamiga ah ee Iran waxa la joogaa xilliga aynu muujin lahayn awoodeena isla markaana aan rarbaaxyo kulul la dhaclahayn buu yiri dowladda Iran taas oo doonaysa inay badaso awoodda isku dheelitiran ee gobolka iyo waliba jihada siyaasadda ee bariga dhexe taasi ma aha mid Israa'iil cuntami karaya talaabooyin kasta oo ay dhinacyadan qaadaanna ciidamadeenu waa ay ka hortagayaan ayuu yiri taliyaha ayaa sheegay in weerarkii dhawaan Israa'iil ay ka fulisay gudaha Iran uu ahaa kaliya baa la yiri hordhac iyo diyaar garow weerar ka sii xoog badan oo baaxad weyn leh haddii loo baahdo sida uu hadalkiisa u sheegay waa mid ka mid ah goodintii ugu cuslayd oo ka soo baxaysa nidaamka Israa'iil tan iyo markii dagaalka gobolka bariga dhexe ee halka maalin soconayay shalay si degdeg ah loo soo afmeeray wuxuu intaa ku daray in ciidamada Israa'iil ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah Hezbollah isla markaana ay kordhin doonaan cadaadiska iyo qasaaraha lagu gaarsiinayo weedhan ayaa waxa ay sidoo kale ka turjumaysaa in Israa'iil ay si cad militarigeeda u sheegayaan in ay ka baxeen xabad joojintii lagu dhisay in la joojiyo dagaalka koonfurta Lebanon sidoo kale taliyaha ciidamada Israa'iiliyiintu waxa uu sheegay in ciidamadooda ay ku jiraan heega sare ayna si xoogan uga jawaabi doonaan meel kasta oo ay ka dareemaan buu yiri qatar weyn oo amni
dhinaca dalka Iran waxa uu sheegay in Israa'iil wali ay sii wado feejignaanta military isla markaana ay isu diyaarinayso inay dib u bilowdaan waxa uu imanaya xilli dhinacyada loolamaya ay hadda xiisadoodu gaartay meeshii ugu adkay tan iyo markii dagaalka gobolka Bariga Dhexe uu aad u xoogaystay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa laba wajiileyn iyo waliba isbedel sameeyay intii dhexdhexaadiyaashu ay qaati ka taagan yihiin laba wajiileynta Trump ee ku aadan xaaladda wadaxaajoodka iyo nabadda iyadoo xitaa ergadiisa wadaxaajoodka qaybta ka aanay hadda xaqiijin karin go'aanada ay qaadayaan inay meel maraan ila ku dhawada xaajoodka ayaa u sheegay wargeyska caanka ah ee ka soo baxa dalkaasi ee The New York Times in Trump dhowr jeer uu isbedelay sida marka hore in uu soo jeediyay in dowladda Iran ay dhintaba uraniumkeeda bacriminta ay ku hayso muddo 10 sanadood taasi hasaatee ergada marka dib ay ugu laabteen Washington Trump ayaa arintaasi uu hore u soo jeediyay dib uga gurtay waxna uu yiri hadii ay 10 aqbaleen waa in ay sidoo kale yiraahdaan 20 ayaan ka dhigaynaa taasoo muddo dheer qaadatay dowladda Iran in la qanciyo ilaa iyo haddana arintaasi aad u adkaatay il kamida dowladda Pakistan oo la hadlay telefishinka aan iraade wargeyska The New York Times ayaa waxa uu jiray iyo talada wadanka Iran ay ku aruursan tahay in la helay aad u adag tahay waxyaabaha kale ee aadka la isugu haysto waxa kamid ah arinta lacagaha dowladda Iran ee uga xayiran caalamka iyo waliba damaanad qaadka Mareykanka in aanu wax dagaal ka dhici doonin gobolka Bariga Dhexe isla markaana lagu soo qaadi karin dowladda Iran wargeyska waxa uu leeyahay khilaafka waxa uu bilowdaba jidii wada hadalka la galay oo ay ka furmeen dalka Pakistan warbixintu waxay sheegaysaa in khilaafaadka ugu weyn ay bilaabmeen intii lagu guda jiray wareegga ugu horeeya ee wada xaajoodka lagu qabtay Pakistan kuwaas oo daba socday wada xaajoodyadii dhacay bilihii April ee sanadkan dhexdhexaadiyaashu waxa ay ku eedeeyeen Trump in uu marar badan dib uga laabtay qodobo ay hore u aqbaleen wafdigiisa wada xaajoodka joogay sida lagu sheegay warbixinta ergeyga gaarka ah ee Mareykanka Steve Witkoff iyo madaxweyne ku-xigeenka JD Vance ayaa mas'uuliyiinta Iran u sheegay in Trump uu aqbali doono arrimaha la soo bandhigay hasaatee waxay noqotay guud ahaanba in ay qodobadaasi meesha ka baxaan raja ayaa laga qabaa ayuu leeyahay wargeyska in wada xaajoodkan haba tabar yaraade marka ugu dambaysa guntiisa ay noqon karayso gool kama dambaysa maadaama waxa kaliya ee lahuba ay tahay in Trump aanu doonayn dagaal dheer inuu ka dhaco gobolkaasi fiid wanaagsan khiyaarta ay nala socotay tabinta qaybtana intaas ayaan ku hakinayaa baahinta iyo waliba lafagurka wararku waa noo sii socon doonaaye soo dhawaada kuna soo biira YouTube-ka oo subscribe saara nabadino